السلام عليكم. وقريبك واتو إيغا كلا go'ayo qola dariskayga tuuba ku jabta iyo waxbaan maqlay qoladii oo biyaha iyo dabdamis iyo xururday markaasaan naxayo ordo banaanka aadayo qariibku waa iga kala go'ay dee waana ku cusbahay waad iska garan kartaan miidiyaha marka meeshaydi man ka bilaabanaya walaalayaal waa idin salaamaya waxa weeye walaalayaal marka sidaan horeba uga hadlayay miyayna fiicnayn inaynu Soomaali hadaynu isku tashano inaynu qof waliba dhalo loo diyaar garow horta inuu ilmo la dhalo horta labada qof oo ilmo dhalaysaaba inay u diyaar garowdo inay ilmo dhasho laakiin inagu aan u diyaar garoobin inay ilmo dhalo aan ilmo dhalin qayb baa waxay oranayaan qadarta Ilaahay bay kasoo horjeedaa ilmaha Ilaahay baa bixiye iyo maxay ahayd afweera noocaas kuwa gali doona waran ugu qadarta Ilaahay kama soo horjeedo walaal muslim baan adigoo kala baa laakiin diyaar ma u tahay adigaas sida Ilaahay diyaar ma u tahay in ilmo dhasho ilma dhalaysa laakiin aad dhasho diyaar ma u tahay ومحا ديارينيسا in xoolo badan la diyaariyo ma diyaar garow ma xoolo badan inaad dhaqato diyaar garow ma waayo dadkii ugu xoolaha badnaa adduunka maanta ayaa ugu faqirsamay inta badan laakiin maxaad u diyaar garoobaysaa waxaad u diyaar garoobaysaa inaad aaba noqoto waxaad u diyaar garoobaysaa inaad gabadh baad guursato ilma ka dhasho waxaad u diyaar garoobaysaa inaad ilmaha la korsato waxaad u diyaar garoobaysaa inaad xuquuqdii lagu lahaa ka soo baxdo diyaar ma u tahay mayo meehid adigu gabadhii hooyaad noqonaysaa ilmaad dhalaysaa waxaan waa wax aniga igu soo dhacay ha u malaynina inaan iska hadlay noloshana dadkiina yareero hadda soo kacay iyo kuwa waaweyn oo wali fahansanayno ka qaata dadka nolosha macaankeedii qaraarkeeda soo arka dhageysta gabdhaha YouTube-da gala gabdhaha nolosha maxay tahay wax ka garanaya sida maama Soomaali oo kale iyo dhageysta si fiican dhagaha ugu fura waxay idin siinayaan wax dhaxal gala oo wax idin taraya wax ilmaha maanta aad dhalayso ama aad iskaga dhaafto aadan dhalin ama aad u diyaar garowdo inaad waalidka ilmahaas noqoto ayaad ka helaysaa haddaad kiribadooda si fiican aad maaragtay aad ugu xidhnaato waxay laga hadli lahaa iyaga ka hadlay laakiin in yar baan dabcay inaan ku daro maanta maxay ahayd tiskraabe isiya laagi siya hebelawi siya igama aha waxaas dhan igama aha inaan ku noqdo ma rabo inaan lacag YouTube kaga qaato kaga helo ma rabo ma garat YouTube ka hadda aan live kan kaga jiro waxa weeye waa YouTube caruur yar yar intaysan sameeyaan aan bal dadka adiguna wuxuu u geysatay dadka ilaa waa tii la yiri qofka dadka maxay tahay afcaa dadka ugu khayr badan waxaan rabaa gabadh yar oo maanta qol ku xiraysan in qolka kaga baxdaan rabaa wiil yar oo aan aaba u diyaar garoobin laakiin ilma iska dhalaya ayaan rabaa inuu ogaado dhibka ku soo socda ma noqonaysa suurtagal walaalayaal inaynu ilmo iska dhalno way ogahay gabdhaha Soomaalida maanta waxay ku tartamaan hebla sanadkii hore waa dhashay sanadkan waa dhashay anna maxaan sanadkan u dhali waa laakiin waxa ka khayr badan waxa laba cunug oo aad wax barto oo aad diinta barto oo aad dhaqanka barto oo aad barto sidoo u noolaan lahaa isagoo isu afeeraha toban baynu dhalnaa way ognahay waxaad arkaysaa حتى ilmaha hadii mid ka soo bixi lahaa challenge la iman lahaa oo wax noqon lahaa hatta ka kala ragaadiya gabadh ma andhaweyda ka hadlaysay hadda klibka hore ku jiray ka hadlaysay waxay joogtaa Sweden bay joogtaa mise Norway bay Yurubta joogta waxay tiri anoo gabadh yaraan wadanka galay tir meeshaad kii adiguna aad dhashay oo Ilaahay ba markaa kugu reedo wuxuu qaban lahaa maad wax qabsan lahayd ama aad adduunka wuxuu noqon lahayd kii kale oo kula dhasho ciida ka batay oo walaalaha iyo dhiban dhibkooda ku ragaadinayo labadaba ku goynayo hooyada waxay ku leedahay hadaan hebel iyo hebel wax soo si inta Allah ku gurto haday markii hore hooyadu ku talagali lahayd ka fakari lahayd war ilma bada war sideeda wuxuu dubato waa taya beesha waa taya beera walaalayaal war ruday isu sheegan wuxuu dubato waa taya beera anigu igu soo dhacay dhibkan ana ilma dhalay ana aanu diyaar garoobin ana inaan hooyo noqdo diyaar garoobin ayaan hooyo noqdo ilma dhalay waxa ilma iga dhalay oo igu bilaabay inaan u diyaar garoobin waa ba noqdo maxaan ku dhalay maxaan ku soo arkay maxaan ku kribka dama kaga hadli doona waa idin soo diri doona hatta naftayda khatar gashay hatta cunugi khatar galay markaan dhalayeen ninkii iga dhalay meel ba kuma ogeynba meel u jiro ma garanayn cunugayga curad markaan dhalay aabihiis ma garanayo meel u jiro ya ana uur leh sidoo iiga dhaqaaqay uu yiro ku shaqo tagaya meel u aadayba ma garanayo juuqdiisna telefoon ma bahaysan
waa wax aniga igu soo dhacay waxa weeye iska daayo waxba ha dhalinina ilaa aad u diyaargarowdaan culimadu maalin walba waa ka hadashaa waxaad tidhahaan qayba waxay gabdhaha waxay igu dhaheen intaan la hadlayo taleefonka la hadlo aan idhi walaal meeqa cunug 3 cunug oo yaryar hadda uurnan waale maya walaal iska kala dheere hadda casri baa la gaaray naga markaa casri ma aanu garanayni maxay ahayd iska kala dheere walaal ma walaal culimadu waxay tirwaa dambi waayo culimada tirwaa dambi waa ilmaayo maalin walbay ka hadlaan culimadu laakiin sideedaba horaan u sheego Soomaalidu cilmiga inta iyagu rabaan bay ka qaataan inta iyagu markaa danta ay wataan ay ku qunsanayaan ayay ka qaataan ninka ku qaba gabar yahay waa ku jeclahay buu ku yiri waa run waligeedba lama arag laba qof oo iskuursanayo oo khaatib ilaahay kala taagan oo kuma raba dana iskuursada lama arag marka hore jacayl baa isku waan ku jeclahay buu ku leeyahay laakiin ma u diyaarsan yahay jacayl gabar hadda kor farxiyo koronto meel dhigi jirta qoxoontiga aan isku naqaan oo xoogaa yar waxay ahayd dadka fanaaniinta dambe baa hees maalin ay ku mahmahday ma aqaan dadka heestaa dhageystana mihi adu mahmahbay markii nooga dhigtay heesta anaa laho waxaan waa qaali caashiqiye horta miyaad u qalanta ilaa hadda kelmaddaasi madaxayga ku dhiganta waa qaali caashiqiye horta miyaad u qalanta ninka kule waa ku jecel ku guursanaya inaad ermow diyaarsan yahay inuu aaba noqdo wax ka dhalo mase markuu caloosha ku buuxiyo ka dhaqaaqaya mase markuu 2-3 ka dhalo ayuu mid kale raadsanaya adna markaas aad intaad masayirto ama biyo karinaysa oo gubaysa ama ku daadinaysa ama aad la balaqsanaysa la silcaysa markuu kaaga tagana inaad mid kale istiraahbalin kula koriya shil uga hesho miyaad san ka gelinaysa miyuu kiina kuugu daraya xashin kale isaguna koox kale miyuu kuugu daraya mase ma u diyaar garowday meeshaad ilmo ka dhali lahayd oo ninka guursanay adoon waxba isku hayn ninka ilmaha ka dhalayaana ka yahay inaad iskuul hadda dalkaaga ka weydo hatta ilaa qaxoontiyada gasho intaad wax dhigato waxaad balbari ka maal adigu hal cunug ama 2 cunug haduu ilaahay ku sii aad ku anfacdo inaad barato inaad diin ilaahay barato ya waligiin ma aragteen nin naagtiisa kula cibaadayso oo aan cibaadaysan ilaahay barino inuu yiraahdo ilmo ii dhalma ogi hadhowdina maalinta hore ku leeyahay waan ku jeclahay ya ilaahu maxaad ugu yeelan weyday dhakhtar hebel tag marba sheekhu tag ii ducee hebel ii ducee markuu dhasho asuu sida in wada garanayna ragga Soomaaliyeed ay yeelaan maxaad sameeysan maxaa dhaca ana Soomaali dhibka ninkayga aniga oo baa cunug dhiciso iga soo dhacay ooyay الله باي هوغاي باي نماذا تلي عروق وعنقي مركا يساق عنقي عن دلوغو هوري أفر أنا أقول أفر لبا ويلي لبا قبضوت بوحي يقوير مرة بو ميل ألا ميشي هرتكيك مركان فالتقنا محو أوي شالي دعس نكو جعب معناها فيلم داي روايدها مسلسلك أو معناها إن منكو ناقا أو جلان بايكامي تحالي هكا يالي نهاك mid kale oo aan wax aan barbeena meel kale uga hadla hadda ka hadlaya iyadana ma bixin karaba gabdhaha nimanka luqunta uga xidhano wali gabdha noocaas jira ana dhibka ku jiray ma ay jecla ninka way aragtaa inuu safayo jir lahayn laakiin waxay ku leedahay ima furayo kuma furayo ha marka 5 iyo 6 baad waxaad ku dhalaysaa ima furayo naaninaad maanta dhaqan ka weyday na waqti hasiin na cunuda ma yuu ka dhalay na hadduu furi waayo dhaqan baabad ka wada shariicada ka faraysa iska gad ya na haddaad boosas joogto intaad kismaayo timaado qaadiga kismaayo u tagto 2 maalmood balaminayo soo dhaqan rabina uu arkaya wadaqadaadu ka siinaya ya ama caalamka meesha kale aad tagto ya diinta ka faraysa na ma jiro haddaad u malaysan inay diintu anagana dulmiday diintu islaamkuna ma dulmiyo no mana dulmiin diinta islaamka gabdha aaminay kuwa diinta ka cararay oo yirma diinta aniga dulmaday oo ninkii aan rabin ama dhaqanayn uu furay isaga ma jiraan waxaas culimadu maalin bay ka hadashaa sheekh Shabiiriyo ka hadlay maalin dhaweey aayadaasna maalintaas ay ugu horsay qofka doona diinta baran xuma wuxuu yiri aayad quraanaba waxay qabtaaba ninku haduunan awoodin inuu salaba naagod guursan karin waligin miyaad aragtay nin lagu qaadayo maanta gabadhii fanaanada hoomarada iyadoo halkan ka yar qaawan tahay mucjiso fadeexa culus hebelaw diinta islaamka dhinac ka martay baatiraan ya miyaad aragteen wali nin lagu qaadayo aayada quraanka wali miyaad aragteen hada culimadu waxba ma qariyaan ana mood jiray culimadu wax qariyaan culimadu waxba ma qariyo wax ka hoos qaaday ilaahay culimadu wax ma qariyaan way noo sheegaan yaa ka hoos qaaday oo yaa ka hoos qaaday
ويا دقيسة أنت ضربتك كلام بحيسة أنت أضرب من نوات ورث ولم ياد نقشين ولم ياد نقشين maxay ahayd ninkaasi laba naagood ma wada guursan karo xag dhaqaale ha noqoto xag dadnimo ha noqoto xag waxa weeye maxay ahayd mas'uuliyad ha noqoto ma wada qaadi karo ayad quraan qabto wali miyaad maqashay sheekh shibiri oo ka hadlaya maqlay waana idin soo gelinaya inta aan diinta waxba kugu hore yaqaanina waaba taqaaneen way ku khasaarnay ma garat gabadh yar meel dheer waxaan dhageysanayay nin bay waxay ku shubtay sideedaba muhiimiyadii waxaynu ka dhignaa ilma dhalo maxaynu muhiimiyadda ilmaha uga dhigaynaa ilmaha maba u diyaarsanide ilmuhu hadhow silcayaa meeluhu galaya oo isqarxinayaa nin baa intuu shilisi hore isqarxi naya nimanka u sareeyay nimanka wax qarxiya ilmahoodu kulli waxay ku raaxaysanayaan caalamka ismana qarxiyaan ilmaha isqarxiya waa ilmaha naag doqona iyo nin doqon iska dhaleen weeye ilmaha isqarxiya kuwa tahriibta ku dhamaanaya ya waa ilmihii la iska dhalay waa la iska dhalay iska dhalayaal baa dhax koowna anaa ka soomaydinaan garan wadamadan hadda aynu nimiyo maxay tahay cadaanka miyaad aragteen horta maalmo Soomaaliya ilma laga qaato ma maqashaan hatta carabtu waa laga qaataa wali miyaad maqasheen miyaad aragteen naag cadaan oo 6 caruur daadihinaysa miyaad aragteen iyo nin cadaan oo 8 caruur daadihinay miyaad aragteen ma is weydiiseen way u dhali waayeen ya ma is weydiiseen way ay u dhali waayeen ya anigu hadda in badan baa la sheekaysta cadaanka kaliya carabta xataa waa la sheekaysta horta carabta xataa dadka islaamku wuxuu qabaa in wax badan la guursado caruur badan la way kula yaabeen gabdha Suuriyan la sheekaystay markaan iraaho nimanka yoga far bay guursadaan markaan way la yaabeen sida far guursanaya maxaa adigu marka yaad u fadhida marka macnaha hadda mar raba faraha inaan ku dheeraado xagga inaan galo sheekada ay la gashay waxa weeye walaalayaal way u dhali waayeen dadkan cadaanka oo inaga maalin walba inta 6 7 8 dhalay inanuba diyaarsanayn way la inooga xaabsanaya gawaarida la inooga guranaya way hooyo single mother-ka ilmaheeda loogu naagaha hadda anu gobol ma jooga laba naagood baa ilma ka wata wax way aad baan ugu yarnahay dhawaan baan lagu soo bilaabay meeshan maxay tikarada wax way goboladan oo Mareykanka xuduudda la leeyahay New Brunswick baa la wadoodan lagu soo laba naagood baa niman ka wata gabigeedba laba naagood baa niman ka wata inta yada timi konton 60 waa dhan inta yada ka kale single mother maxay ku dhacdo way maxaa cadaanku wadan kale oo dhaqaalaha haysto inuu dhaqaalaha u soo doonano inagu bariyayno bangaliyada ka bariyayno oo aan dhaqaalaha ka bariyayno way u dhaliilayeen haday faa'iido ku jirto ilmo badan maxay u dhaliilayeen quality male ya quality male ragga Soomaaliyeed waa xisaabiyaan boqolkiiba 95 waa qayr mas'uul 5 baa wax dhaqan karta shantii wax dhaqan kartayna amni la'aan kala dhantaasho iyo mid maxay ahayd ilaahay cabsidiisa maxay ahayd laba gali waayay meel walba iyo mid maxay ahayd waa iska rikaatay sameeyinba adigu shanta wuxuu baa u fakaday 95 kale waxay dhaheen gabadhii darad sheegaysay aan ka dhageysanay waxay dhaheen intuu tagooga ku jiri lahaa tubta hayaal ma ay oran war maadaama inuu qeyr mas'uul lahayn nimankan cadaanka nolosha ka dhacay ma dhalaan waxay u dhalaan ma dhalaan be ya nin cadaan oo ilma wada hadaarto gacmaha haya waa nin nolol haysta waa nin wax bartay waa nin aqli leh waa nin xisaabtamaya ya annagana kuwa ugu liitaa weel ma badan shanta Soomaalida aan ilaahay waa fiicanta waxbay dhaqataa shanta awlaadoodu wax xisaabsanta way xadidanta rasuulkan kaleey salaatu wasalaam cid ka khayr badan ma jirto gabadha ugu jeclaa gabdhaha Aisha ahayd hal cunug ma dhash ma waxa idin la tahay maanta way idinka sheekada ku wartay noo duceeyay Aisha dhihi way rasuulka ii duceeyaan ma dhale ma idin la tahay inay dhihi way ya ما بلف جرينين بوحة كلاقيمة بدنا عبادة يا آخر يجندا كلاقيمة بدنا هنا المبرد ما كلها يعيش هنا المواعيد هاي هدي أي رسولك عليه الصلاة والسلام يديه له رسول الله ويبري له ولا يعملوا كاسيس لو قد بيسوي شعراين يا ما حد عاي واي أديك المها أي باو أضب اللي فكرة ستة إنك هذا المولى اللي بينات عبابس way aad markuu sanadku qaba ninku ordaysa waa waray hal sano la qaba uurma yeelan waa ninku masaajidadu galay wariid duceeyay gabar baan hal sano qaba waxa laga yaabaa mid uu 9 ku soo furay ama 8 ugu yimid oo sameelku ugu laakiin tan uu hadda guursaday muhiimiyada waxa la saaray ilmaha dhaco nimankuna ilmaha naagaha kuma jeclaadaan ana runta idin haye waa bariyay meeqad soo taagnaadana 9 10 dhashay oo la furay mid yar oo cusubna laga qaadanayo waxay dalantay tan yar in loo qaadanayo ilmaha dhalasho kaliya rabitaankiisa marka baahida uu haysa ayuu u qaadanaya bari marka ilmo badan dhashana booski tiibay galaysaa
miyaa taa ogtihiin waa wax aniga igu soo dhacay walaalayaal waa wax aniga igu soo dhacay naa u diyaar garow inaad hooyo noqoto naa u diyaar garow inaad hooyo noqoto naa ninku maanta hadduu kaa dhaqaaqo cunuga ma korsan kartaa naa wax ma u qabsan kartaa naa iskool ma ka bixin kartaa naa jaamacad ma gaarsiin kartaa naa mustaqbal ma u yeeri kartaa yaa mase gabadhu markii 14 gaadh 13 gaadh la waxaan jeclahay dub nahay cunuga xambaar markuu kii kaa dhaqaaqana mid kale sanka ka gelinaysa oo aad is leedahay shil ha kugu siiyo ilaa marka ilmo jacaylka ama ay naf baa ku hayse markuu ku yimaadana ka hadaadan uuru yeelan waad waaranaysa way yaa biyo qasqaso shaah karso kuwii ku korso kuwii hore 2 iyo 3 haduu ilaahay ku siiyay naanu isoo maray dhibkan waa wax aniga isoo maray waa wax aniga isoo maray maaha wax aan meelaha ka soo koobiyay maaha walaalayaal waa wax aniga xanuun igu haya waa wax aniga xanuun igu haya baan kaaga digaya waxaan uga digaya gabdhaha yar yar waxba ogeyn oo awlaada future-ka u yaqaan awlaada baan uga digaya walaalayaal waqtiga xoogaa way nagu batay waxa weeye waanaan inta idin ka dhigaya walaalaha iga yar yar baatiin gabdhaha iga yar yar baatiin aan dhali karo waxaan idin ka digaya walaalayaal waxaan idin ka digaya in adoo aan u diyaar garoobina hooyo noqoto inaadan cunug u dhalinin aan u diyaar garoobin oo aabba noqdo walaalayaal taasaan idin ka digaya waxa weeye cibaadaysta laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah cibaadaysta alla baryo oo diinta barta oo maadiga barta oo u diyaar garow inaad hooyo noqoto waxaad arkaysaa 2 nin wada qaba ku tartamaya yay ka ilmo badan ايش فائده maxaa ku jira inaad ilmo badan dhasho maxaa faa'iido ku jira bari baa la tooganaya tiirka lagu xidhaya tuub buu noqonaya dilaab buu noqonaya badu isku tuuraya argagaxiis uu noqonaya dadkii buu dhibaya waxaan dambi ahayn adduunyada oo maad soo kordhin Soomaaliya oo maad soo kordhin yaa markuu wax kula korsada aad weydo Kenyaankan madmadow yaa idka aqal badan markay 2 cunug markay dhasho bay isduraan haddaad aragto naa Kenyaan oo ilmo badan wato waan kuwa cawaanka reer baadiyaha markaasay caahayaan markaasaa naa kasta oo u diyaar garowda inay hooyo noqoto cunug dhashay cunugeedu future wuxuu ka faa'iido badnaada Soomaalida oo dhan Soomaaliya ku nool ka faa'iido badnaada yaa maxaa inaga inoo diiday inuu way u diyaar garoobaan inay hooyo noqoto waxay kula hadaan cunug dhali karaa gabadhu 30 markay gaadho oo gaarigeeda iibsato oo gurigeeda iibsato oo jaamacadda bogto oo dhakhtarnimo ama maxay ahayd injineernimo shahaadada soo qaadato ay degree soo hesho ayay waxay tiraa hadaan cunug dhali karaa markaas haddii alla siiyo ay maxay ahayd ay raadisaan markaas ay ama cunug dhasha ama 2 cunug dhasha afartan kuwa jiray baad aqsa jaamacad inagu yoon wadan hadda wadan bay leedahay naagtaas wadan bay leedahay oo intay xafiisyada gashay waxay dhihi kartaa maartay cunugan saan baa laygu yeer waxay ku soo siiyay bay dhihi kartaa adigu wadan ma lihid oo dawlad ma lihid oo wadankaaga waa kaynu isloogna wadanka fiican ma jira macnaha waxa weeye dad buu leeyahay yaa maxaa adoo aan dawlad lahayn oo wadan isku toosan lahayn xagaad ka keentay inaad iska dhasho ilmo yaa gabadha maanta ninka nolosha kula dhibanay oo hadana raadinaysa ilmaay ma markaad ilmo dhashay ku fiican kuwa waxay aaminsan yihiin ninka waa isku xunna walaal ilmana uma hayo dhibka ay haysta waxa weeye inta badan de ninka nimaad ilmo u dhalin waxay isweydiiyaan Soomaalidu heel gabadhii sanadkii hore guursaday ma dhash maya wali uur ma yeelan inna lillahi ilaahu ilma si waa sax ma sha Allah la soo duceey laakiin maxaad ugu duceynaysaa cunugan aad Allah u bariyay inuu adduunka yimaado sidoo adduunka intuu yimaado ku noolaanaya hadduunan aabbe iyo hooyo waxa weeye uunan haysan yaa siduu waad aragteen ka hooyada iyo aabihii dhintaan maxaa tirahaan raja iyo agoon baa tirahaan maxaa raja iyo agoon qof maanta oran ilaahu raja iyo agoon nasiib ma jira ma jiro wayaad marka raja iyo agoon u raadin cunugan hooyadiina u diyaarsan hooyo noqoto aabihiina u diyaarsan aabana waxaad arkaysaa habar ku fufaysa oo ilma saa ula ka dhacdhacaysa oo miskiino ooyaysa arkaysaa waxay ku leedahay wiilkayga baa dhalo gabadhii dhashay baa igu soo tuurtay waxay u soo tuuraysaa markay dhalaysay may diyaarsaneen inay dhasho ilmo Soomaa walaalayaal waa idin salaamaya hadalka ayra sii tagay waxa weeye intaasaan ku joojinayaa ilaahay ka baqa waxa weeye awlaada waxaad ku aynu seef gareyn karnaa inuu dhalo waxaynu seef gareyn karnaa inuu dhalo naag walba 2 hal waa ka adagta haddaan aabahood kulli aan qashinka ku darno laakiin 10 cunug ma korin karno lana aragna la korin karayno dadkii kuwa yag dibadaha yihiin waa korin waayahay الله بوا من نرشة كل بان تيدا ولده وحوي رجال بيت كل عقد كسيرية أيام ما نربى ذاك تنا قاعد لك قرنية وهين لا
midaan aabana wax siinay midda kale waxbaa idiin sheegaya ninku hadduu ku furo maanta kaa dhaqaaqo intuu ku qabo waxaa laga yaabaa aabihiis iyo hooyadiis iyo ehelkiisa inay ku dhaqaaleeyaan xaquuqba male cunugaagu haddii lagu furo soomaalida xaggeeda ma lagu furay ninka ma kala tagteen wax xaquuq cunugaagu male sideeda bataatanba nin ilaahay hagaajiyay oo asagoo alla ka cabsanaya oo ilaahay cabsidii ilmaha xaqooda laga yaabo inuu wax siiyo laakiin gabadha uu markaa qaba ilmaheeda ayaa xagga qoyskii awood ku anaa soo arkay waxaan moodi jiray dhib kaligay haystaa midda kale waxaan idiin sheegaya gabdhihiina dhibano ogaada dhib kastoo ku haysteen gabar Soomaaliyeed kula qabto ama kula qabi jirtay taa niyada ku qabo dhib kasta oo ku haysta waa dhib ay gabar Soomaaliyeed kula qabtay ogow moogta dhibka dad istiro kaligaaba ku haysta waa isliidaysa marka dambe oo inaad waaltaad khatar u tahay laakiin dad ogata dhibka in lagu qabo inuu bad ka dabaalan kartaa sidee gabdhihii ka horeeyay wada baashay YouTube ka naagta la yiraahdo waxaad gashaa maama Soomaali gabadha la yiraahdo Arab gabadha la yiraahdo maama Soomaali oo degan maxay Canada degan YouTube keeda dhageyso dhibka ay soo martay dhageyso nolosha hadana waxa way meeshay ka gaadhay dhageyso gabdho badan maxay haytay anigu inta ugu dhib badan baan ku jiraa in badan waa idinka soo waaninaya waana idin soo galaya khadka waana idin soo sheegaya qaxoontinimada yaro aan maanta maartay Canada intaan tagay ilaahay subxaanahu wa ta'aala maartay maxaad si saadi xooga iga hadhay inta dhib oo kale aan haysataa ka badan Soomaalian garan waxa way cunugaagu hadduu ku weydiiyo ka waran tu arko cunugaa bihi gacanta haysta ama aabihi wado hadduu ku yiraahdo ka waran على الحما كوين ما جرت هاي أنا قام حق عبران دقيق يا أنا قاعد عبران هاي محانة واي عنو جاء عبران أنا قاعد كدقني بهنا عبران هذا مركي هو جورسل هين أنا قاعد أطيع أرسن يعني أطيع أرسن هذا جورسل هين no ما دعدين تاس ما دعدين مركا ولا الله يروح هذه الشيء جيا وديار جروب إن هذا المدرسة بليز inaad ilma dhashaan u diyaar garooba maalinka diyaar noqotan waxaad guursanaysaa nin diyaar waa inuu aaba noqdo laqal haduu dhinto tii alla u timaado ama uu kula dhaqan waayo ama sidaad moodayso uu noqon waayo daadaa diyaarsan ya tobanna ma dhalaysid markaad ku talagasho inaad hooyo noqoto ilaa hooyo dhal laguma noqday hadda Soomaalidu waxay ku noqotaa dhal laakiin hooyo maxaa lagu noqdaa de xanaanada lagu noqdaa ilmaha inaad booska hooyanimo uga soo bixi karto ilaa hooyadu waa macalinka bulshada hooyaba waxa lagu noqdaa inaad dhasho de may hooyo inaad dhasho kaliya laguma noqdo walaalayaal ha ku sheekayna taa ma lagu noqon karo maxaa lagu noqon karaa inaad booska hooyanimo ka soo bixi karto ma ka soo bixi kartaa 10 cunug oo aan haba kula korina oo kula korinayno aad rafaadsan tahay ma ka soo bixi kartaa kuwii dabadaha waxa way saal cagta loo dabawaday ayaa intay waasheen oo madaxii waxa way maalin walba gaari baa lagu guranaya xad ka faa'iid bari isagoo gaala wiilkii oo naaska duran baa ku yimaada iyo halka naas uu joogaan gabadhii oo maxay tahay aadam saf garanaynba ma bay saf garanaysan ka war hadii ilmaha saf garan weeydan ka war marka ha lagu tala galo waa dhib soo maray waxaan kala hadlayaa waa dhib soo maray وأنا أنا أقول كلاي هدان هي لو حسيت هاي جوانية أما وقت قبرها بشود تشري لهاين أما وقت يبض أنا الصومري أنا هي لها روح هذا وين هذا الحمد لله رب العالمين ما تقف ما عمري ما أنت كتشروه كلا كتشره وما تساس وكلا يلصو حد لها وأنا بجاي سلها وحبا يقول لها وحبا ضم بنقاضن لها لكن ما يندحين وقت وحان راي بي سida idaacada ahayn oo la dhageystaan ay jirin idaacada afafka ku hadla gabdhaha walaalaheena oo maxay hayto wada dhiban isla wada dhiban yihiin oo meel jax wareer ilma iska dhal oo iska guurso oo nin iska iyo ilka system ogiye adduunyada isu jiidanays baan wax ku soo dhalay oo iska soo istabayaaca marka maanta dadkeeni dhibka soo maray ayaa dhibkii ka baxay oo nolosha horumar ka gaaray kuwaasaan ka qaadanayna nolosha marka يعني نلاش كقاعدنا كوي دبك هذا كوتشرنو إذا كأت كوتشرتو كدعي والصدا هذا دبك هذا هذا ما أنت كوتشرت صامرتي صدا يوهب حدا كمان أسي وينات هذا كنا ترى وينات راعدا نقول هاي سكادين دقيسو نبى يفري وينه نبى إما فريا محن سمايانا شري اللي حيانو كاغدال يسوي مرهور وبشيكتي وابعد دستوركي يقول توقت أنت كوجا تبتهيلا يو كاغدال أفدالي حفظه أنت كوجا هذا العرر
labiyo saddexda aad markaa ka haysato ama haddaad hal haysatana korso yuu mid kale ku dhinkee kuugu dareen yuu kuugu darin no diid in lagugu daro aad iyo aad baan idin salaamayaa waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa khadiijo soomaali oo idinle walaalayaal soo dhawaada in badan